xalqadayna hore waxay ku dhamaatay gabadhii oo kule walaalkii Johan dilku geysanaya anaa mas'uul ka noqonaya oo anaa soo raadinay ugu dambeyn gacanta soo dhigay teen ma adikii waxaan ka codsanayaa inaad ii fulisid waxaan ka rabaa inaan ka codsado waxaas oo ah in aan dilku walaalkii geysto dhaweysid intaas oo kale ka codsanayaa walaalkiina aniga igu daa aniga gacanta ku soo dhigi doonay hadaba xalqadii hore nooga sii wada asxaabay ee fadlan asxaab like saar maraan ugu dhaawdo bixitaama saartiin taadayna xasuusiyo ee fadlan amar ma aha laakiin waa codsi ee like saara hadaba aan soo laabano dambi baaralang lang isagoo raba inuu baaritaankii sameeyo ayaa wuxuu arkaa taygii wiilkii Teenma wuxuu yiraahdaa taygan waxa iska lahaa Teenma waxaana hubaa inuu isagu dambiilaha yahay oo isqarinayo oo uu leeyahay wajiga muskiimaha laakiin gudaha ka yeeshaydaan cid dishay maamulahana cid kale ma ahan ee waa Teenma isagana dilalka ugu halista badan la geysanaya maadaama dadka aqniga ah uu u hayo cuqda wixii eedayn ahayd oo dhan ama dambi oo dhan wuxuu wiilkii Teenma ay dusha u saaraa oo wuxuu ka dhigaa dambiile la raadsanayo inkastoo uu hayn cadayn laakiin haddana dadkii dhan ayuu ku diraa waa asiidukum min sha'ril baytan gabadhu ku dhahay gurigooda iska taga kuma baahni ee lagu magacaabo Eva taasoo dhal hogaamiska la hospitaalka ayaa waxay imatay wiilkii waxay ku tiraahdaa saaxiibaan ku xiisay ku tiraahdaa imika waxaad leedahay mansab iyo maal aabahii uu geeriyooday hantida aabahii way burburtay wax aan ku noolaado ma haysta ee fadlan caawi oo i guurto waana ku jecelahay ku tiraahdaa waasoo guraahdaa wanku ogayna danaysa tahay mar labaad ay kugu celinaya mar saddexaad ay kugu celinaya anigu kuma doonayo ee dariiqa iska mar baad qalbigayga jabisay aabahana shaqadii uu lahaa uu iga soo eriyay waxa soo dhan aad igu sameyseen mar xitaa waxaad iga dhigteen qof bilaa sharafa oo wiil miskiin aan aabi ka dilay kadib markii aan qaatay lacagta xaaraanta ahayd oo aabaha isiin jiray ee waliba bilaa faa'iido ahayd adiguna waad iga tagtay aniga ku jecel baad qalbigayga jabisay qolmadow ayaan maalmo mugdiya ku noola kaligay oo qalbi jabiya lacag la'aan ee haystay shii isku darsatay adiguna markaas aad soo laabanayso markaa waxa soo ka soo bogsaday ee fadlan mar dambe wajiga ay tusin ee iga tag buu ku raahdaa laakiin waa masiibo mayna saas ka tagtaa umaleynaysiin wiilkii taay xarigiisa soo qaadaa waxaan u geysaa booliskii waxayna ku tiraahdaa cidda dembiga geysatay waa wiil Teenma waana wiilka ka dambeeya waxaan oo dhan dilaal ah isaga ayaana qorsheynaya wuxuuna iska dhigaa qof miskiina ee miskiin ma ahan waa nin khiyaanoola oo dambiile heer sare ah oo qalinkana soo fiican ayuu yaqaanaa dadkuna meelaha naftu ka kaarba ka bixi karto ayuu yaqaanaa saas ayuu uga faa'iideystay xirfadiisii waana dilaa halis ah ee hadda soo qabta haddaa cadayn rabtiina tayga DNA-giisa baara isaga DNA-giisa ka arki doontiin kadib dilalka meelaha ka dhaceen isku barbaara isa idin soo bixi doona wiilka Teenma ayuu waxa soo noqon doonaa waxa soo dhan u sameynaysa waa bisada wiilkaas inay ka argudato ama intiqaam ku sameyso markaas boolisku waxay yiraahdaan ha gabadha run bay sheegaysaa ninkan wuxuu noqon karaa dilaa maadaama uu yaqaan meelaha dadku naftu ka bixi karto dilkan uu geysan karo una yahay nin qaliin oo heer sare ah sidoo kale uu yaqaan sida wax loo sameeyo oo ninka hogaamiyaha ah ama ninka iska lahaa hospitaalka uu sameeyay waxa soo dhan waxay cadeynayaan inuu ninkan ku koro dilaa oo wiilkiisa miskiima uu leeyahay hadaba si kasta ay ahaataba waa inaan hadda soo qabanaa intuusan dilal kale sii geysan ninkaas waa dilaa aad u halis ah markaas boolisku waxay bilaabeen inay hospitaalka wiilkii Teenma soo haraareeyaan Teenma isku naxaa yiraahdaa maxaa dhacay maxaa la sameynaya markuu ogaayay booliskiisa inay isaga u soo socdaan ama ay rabaan ay qabtaan ay wiilku bilaabeen inuu hospitaalka ka baxsado markaas wiilkii Teenma wuxuu dhahaa hadda wiilkan Johan hadda ku dhaahdo wiilkaas ayaa dilka geysanaya qof aaminaya ma jiro waa wiilka wuxuu leeyahay wajiga miskiin uu leeyahay wajiga qurux badan uu leeyahay waxaana loo maleeyaa inuu yahay qof bari ah oo aan yaqaan xitaa sadadka loo sar ama ciise dadka wax loogu mudo misbaar xitaa qofka lugta kaga mudi karin mid kale boolisku waxay iga hayaan cadayn been abuur ah kaasoo ku saabsan taageygii markaas wuxuu yiraahdaa leeytaniya maxaan sameeyaa haddaba dhacdooyinkaas waxa ka soo wareegata muddo 5 sano wiilkii Teenma lama arag hospitaalka mar labaad kuma soo laaban meel uu jaanic cirib dhigana lama garanayo boolisku way raadiyeen dadka dadweyne xitaa way raadiyeen si ay u soo qabtaan xitaa boolisku waxay bilaabaan heer ay wiilkaas madaxiisa dul dhigaan lacag weyn yani waxaan ka wada lacag badan ma ka wada lacag ma jirtay haddaba 5 sano kadib waxa si kiisa soo muuqda wiilkii Teenma isagoo xiran jaakad weyn dadkana iska qarinaya hoostan wuxuu ku wataa baskoolad wuxuuna raadsanayaa wiilka Johan wuxuuna niyadda ka leeyahay Johan mar uu noloshan kugu qabto haddana nolosha kugu cadaabi waayo haddaba 5 sano Teenma maqnaa ma inuu aamusan muleeyay wiilkii Teenma yani Johan ka wada Johan ma inuu aamuso iska miskiin yahay oo muleeyay dilal wuxuu geystay dilal ka sii daran kuwii hore oo dalka Jarmalka ka 100% dadka Jarmalka ku noolaa uu laayay oo magaalada Frankfurt tagaya mar Berlin tagaya kuwa meel ay tagaya oo ka soo geysanaya dilal waxaan oran karnaa wiilkan Johan
dilku wuxuu noqday balwadiisa yani maalintii intaasoo qof baa laga yaabaa inuu dilo midda kale wiilkan waa wiil aad u caqli badan dilalka uu geysanaya dad qof ka shakinaya ama yani dareemay ma jirto waxa kale uu adeegsanayna waa hub weliba qori oo xabadda lama maqlayo xiliga yani qofka uu tooganayo lama maqlayo kaliya dadka uu qorsheynaya qofkii rabo inuu dilo agtiisa yar garab tagaya kadibna yani uu jaasuusaya ama yani waqtiyadu firaaqada yahay ayuu jaasuusaya kadibna markuu qofka nolosha ku qabto nolosha ku cadaabaya midkan niga ilaawa saxaabi wiilkan Yohan dadka uu dilay waa dad u gaar yani dad qofka iskama dilay dadka uu dilay waa dadka qaniga ah sababtu dilay dadka qanigaana markii yani qalinka la rabin lagu fuliyo wiilkan taan uu rabin inuu qalinka ku fuliyana hogaamiyihii gobolka uu ka xanuunsaday yani anigu soo sheegay xalqadii hore kadibna yani la rabin in Yohan qalinka laga wareejiyo oo loo wareejiyo wiilkan yani hogaamiyaha gobolka wiilkan Teenma loo ka xeelo lagu yiraahdo wiilkaas ninkaas qalinka ku fuliyay laakiin wiilkan Teenma uu damiirkiisu shaqeeyay oo uu badbaadiyay halkaasna Yohan lagaga badbaadiyay marka Yohan isagoo miir daboolan ayuu wuxuu maqlay hadalkaasi oo ah in wiilka Teenma uu yiri dadka maalqabeenka oo dhan kibirka badan li waxa waajib inay geeriyoodaan oo qofna yani dhulka loogu deeyo oo yani maalqabeen ama kibir badan maalinku soo bogsadayna go'aan ku gaaray in qof kasto dambiilaha oo nafta ka gooyo waa sida caruurta hadlay walaalkay markuu yaraa dhigi jiray haddaan maanta yani waxa ay ammaansiin weysay naftan ka gooyay si nafta la iska gooyay ama yani la iska qaado nafta laakiin la iska gooyo haddaba ku soo laabnay wiilkii Teenma iyo xaaladiisa hadda wiilkii Teenma nacba dhimashada ama yani in qof la dilo qof walba halis ugu jiray inuu dhinto yani badbaadin jiray wiilkaas hadda wuxuu raadinayaa dhimasho yani wuxuu rabaa inuu dilo qofkaas nixid kalmaan waa Yohan wiilka xaaladiisu isbedeshay wiilkii yani Yohan ayuu daba dhiganaya oo yani raadinaya markaas isagoo raadsanaya ayaa waxa dhacay inuu seasonkaasi uu xaggaas ku dhamaado asxaabay intaasan ku soo gabagabeynaya animiga Monster iminka waxaad leedihiin ma 15 xalqo oo dhan ayaad ku soo qulaasaysay 10 daqiiqo horta saxaabay eeg anigu marka wax soo qulaasaynayo qisada muhiim inaad fahantiin yani waxan kale laga hadlayo iyo waxaas muhiim ah animiga marka xitaa markaas la soo saaray qisadiisa dhabta ah marka la soo saaray dadku qisada soo qaataan qisada waxa laga yaabaa inay socoto xitaa 20 daqiiqo kali ama 10 daqiiqo laga yaabaa inay qisada dhanba tahay haddana 10 daqiiqo yani dadku yani dadka animada soo saaran jeeday Japanese and Chinese soo saaran jeeday dadka kale soo qulaasay kama hadli dadka soo saaran ka wada dadka soo saaran animigi qisada 10 daqiiqo yani laga sheekeyn karo ay soo saareen kadib waxyaabo kale ku dardarayaan si yani qisada u dheeraato animiguna u sii dheeraado marka qisada animiga muhiim in la fahmo oo xalqada kasta scriptkeedan qoranaya yani wixii ka dhaco dhammaan qoraya kadib inaan la wadaagaya oo yani anu anime waxba kama budbudayo waxna kuma darsiisan soo qulaasaynaya oo si aad u fahantiin marka qulaasay haday cajabisiin fadlan muuqaalka like saara 6k asxaabi 6k balankeen waa 6k nagu tuur asxaabi 6k waa hamigeena ugu weyn bisha inta san dhamaan waana 6kan nagu tuurtiin like tanada waa dhankiina dadaalka iyo yani anime soo baytaanka iyo dadaalka waxaas ani igu daadhankayga yani waa shaqaday taas laakiin like to subscribe to diika keena marka intaas ku soo gabagaynayna muuqaalkeena maanta xalqadaha kale oo ku soo dari doona asxaabi fadlan muuqaalka mar labaad baan igu celinaya like saara subscribe saara ku soo biro 6k nagu tuura maca salaam waa shuufo ku fi anime jaaye